السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaanu tilmaami doonaa daqiiqadahan yar insha allahu tacaala sidee looga badbaadi karaa dunuubta iyo macaasida dariiqa iyo waddada looga badbaadi karo. waxaan ognahay bini aadanka dhammaantii inuu yahay mid gafo oo khaldamo, waxaana ugu khayr badan kuwa soo laabto. marka gafka iyo khaladaadka iyo macaasida sidee baan oga badbaadi karnaa, dariiqada iyo waddada looga badbaadi karo maxay tahay? alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى الظaalimiin waashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh. dariiqada iyo waddada looga badbaadi karo dunuubta iyo macaasida waxaa ka mid ah kow, muraaqabat ullahi subxaanahu watacaala walxayaai minhu. qofka inuu qalbigiisa uu kusoo xaadiriyo, ka xishoodo allah subxaanahu watacaala, cadamada ilaahi subxaanahu watacaala hortiisa inuu soo dhigto. kulamaa qofka muraaqabadaas ay qalbigiisa ku jirto, laa shakka waxaa yaraanaya ama meesha ka baxayo inuu macaasi iyo dunuub uu ku dhaco. ilaahi subxaanahu watacaala markii uu canaananahayay abi jahl cafwan, suurat lcalaq wuxuu ku tilmaamay alam yaclam biana allaha yaraa, miyuusan ogeyn allah inuu arkayo subxaanahu watacaala. mucaaradnimadan iyo ishortaagga dacwada iyo khayrka uu ishortaagahayo yaa laga canaananahayay. alam yaclam biana allaha yaraa. ayib, qodobka labaad oo qofka dunuubta iyo macaasida uu uga badbaadi kara waxaa weeyaan mujaahadatu nafs, qofka naftiisa inuu la jihaado. nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay almujaahidu man jaahada nafsah, waa qofkii naftiisa la jihaado, khayrka ku riixo, khayrka baro, magarat naftiisa ka adkaado. qodobka saddexaad oo looga badbaadi kara dunuubta iyo macaasida waxaa weeyaan dalabu lcilmi naafic, qofka inuu dalbo cilmiga naafica, inuu ziyaadsada aqoonta, inuu badiyo akhriska, inuu badiyo aqoonta sharciga ah, inuu badsado. kulamaa uu wax sii akriyo oo wax uu sii raacdo, waxbaa usoo ziyaadahayo, khayr baa usoo kordhayo. markastoo khayr uu usoo kordhana inuu ku camal falo ayaa la socoto oo meesha ku jirta. marka waa dalabu lcilmi naafic, qodobka saddexaad oo looga badbaadi karo dunuubta. qodobka afraad oo looga badbaadi karo waxyaabaha waxaa ka mid ah almudaawamatu cala alacmaali asaalixa, qofka inuu joogteeyo acmaasha saalixa ah, acmaasha wanaagsan. camalka saalix marka la yihahdo wax walbaa soo gelayo, nooc walba oo cibaado ay leedahay ayaa soo gelayo. allah subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi laakhira. bacd alculamaa waxay ku fasirayaan xataa qofka markii khayrka iyo uu ku dadaalo, allah subxaanahu watacaala wuxuu ku sugayaa wanaag uu ku sugayaa. ayib, qodobka shanaad oo macaasida iyo dunuubta looga badbaadi karaa isagana waxaa ka mid ah adducaa, qofka inuu allah baryo subxaanahu watacaala, inuu allah subxaanahu watacaala ka baryo istiqaamo, inuu allah subxaanahu watacaala ducadiisa u kaashado, acmaashiisa u kaashado, dhaqankiisa u kaashado, ducada allah subxana watacaala inuu badiyo. qodobka lixaad oo dariiqa uu uga badbaadi karo dunuubta waxaa weeyaan alxadaru min suui lkhaatima, qofka mar walba inuu feejignaado oo khaatimadaada maxay ku dambeyn doontaa uu ku fakero. qof sidaa ku fakerayana xaasha in dunuub iyo hilmaan iyo khaladaad badan inuu galo waa ka fogaanaya iyadan. ayib, qodobka toddobaad oo uu qofka kaga badbaadi karo macaasida iyo dunuubta waxaa ka mid ah altafkiiru fi lma'aal, daarta dambe oo aakhara inuu ka fakero, qabriga iyo qiyaamaha inuu ka fakero, xisaabta iyo hawlkeeda iyo shidadeeda inuu ka fakero, jazaha inuu ka fakero.
taana waxay ku caawinaysaa qofka inuu khaladaadkiisa iyo gafkiisa u yaraado ka badbaado. ibnu qayim calayhi raxmat ullah wuxuu leeyahay kun min abnaa'i alaakhira walaa takun min abnaa'i addunya faina alwalada yatbacu lumma. wuxuu leeyahay waxaad ahaataa dadka aakharo mid ka mida ahow, ha ahaanin dadka adduunyada mid ka mid a, maxaa yeelay waladku wuxuu raacaa hooyadii. bimacnaa qofka hamigiisa aakhara uu yahay, dhaqankiisa iyo dadaalkiisa aakhare xaggeedu ahaanaya. ha ahaan marka qof adduunye ha ahaan. haddii hamigaada iyo dhinacaad u badan tahay abnaa dunya aa tahay, haddii xaggaad u badanaysaa khaladaadkaada iyo xumaantaadana inay badan laa shaka. ayib cumar ibn cabdilcaziz raximah llah isagana wuxuu leeyahay hadal aada u qiimo badan. wuxuu leeyahay walaa khayra fi cayshi imri'in lam yakun lahu min allahi fi daari lqaraari nasiibu. wax wanaag ah noloshiisa dhexdeeda ma ahaanin ruux allah subxaanahu watacaala xaggiisa uusan ooga ahaanin fi daari lqaraari nasiibun. qof aakhare aan nasiib ku lahayn adduunyada nolosheeda waxba uma aha. intaasoo dhan waxay tilmaamayaan in ay kugu kaalmeynayso arrimaha iyo qodobadaas oo dhan dariiqada wanaagsan kaa badbaadinaysa dunuubta iyo macaasida. toddobada qodob ayadana halkaasaan ku joojinaynaa. hada wabillahi tawfiiq, wasala allahu wasalama calaa nabiyina maxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam.